Raami Nadiir Mustafa waa nin Siiriyaan ah oo u shaqeynayay mid kamid ah shirkadaha dhismooyinka magaalada Muqdisho. Wuxuu ka dacwooday shirkadii uu shaqeynayay isagoo dacwadiisa geeyay maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaana lagu xukumay shirkadii uu shaqeynayay Raami Nadiir inay bixiso lacag dhan $7,500. waxaana Raami uu lacagtaasi ku horgudoomay maxkamadda gobolka Banaadir. Raami Nadiir ayaa uga mahad celiyay dowladda federaalka iyo maxkamadda gobolka Banaadir inay xaqiisii uga soo qaaday shirkadii uu shaqeynayay. Alxamdulillah rabbil aalamiin. بعد 2 سنة من التعب مع الشركة إن معها كان بعض الفلوس. ilaah ayaa ku mahadsan 2 sano oo daal ah kadib waxaan dacwadeyda u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir waxaan helay xaqeygii iga maqnaa 2 sano in ku dhow waxay ahayd lacag aan ku lahaa shirkad waxaan helay haatan xuquuqdeedii oo buuxdo waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliya iyo maxkamadda gobolka Banaadir iyo qaadigeedaba. waxaa jira ajaanib badan oo maxkamadaha gobolka Banaadir ay u xukumeen xaq ay lahaayeen. Maxamed Ciise Kona, Shabelle TV, Muqdisho.